وعندنا صدق حرايق كوكوباني كاظلو من عبد الولي بكسلسي حقي مدحوينه بدلا بكسلسي مدينين taas waxay tahay oo aan cadeynaya Cabdiwali inuu diiday dhaawaci uu sheeganayay meelaha ay deegaanka ku leeyeen uu xukumo in uu diiday diyaaradii daawada siday inuu diiday dhaawaci in la qaado la raro inuu u guntaday Sultan Garaas shaarka u dhigtay airportka dhexdiisa diyaaradina sidaa ku fadhiistay kuna qaaday waa cadaan Puntland oo ogtay shacabkuna ogyahay ciidamada qalabka sidana ogyahay dawladdu soo dirtay ogtay taasi waa mid allana wuu badalacanayo uu jeeday Ali Khalifa waxaan ka maqal jiray Cabdiwali wuu sheegay wuxuu dastuurkay ku yaalay sool iyo salaag maantay noo cadaatay inay dastuurka ugu yaalaan uu ka milicsado ay salahayn meel uu xukumo taasi cadaan marxaati madoona weeyii sidoo odaygii hore u sheegay ama korneylku uu cadeeyay 60 kilomitir bay u jirtaa meesha la isku gumaaday ciidan cod dhaqaale minna kagama qayb gelin taas diyaaradda ka marxaatay sidii u diiday taasi waa inta Cabdiwali xaqiisaan ku dhaafay mid kale waxaan u sheegayaa odayadii xarfaanta ay halka ku jiray ee kala haystay Kismaayo bay iyo Bokool iyo madaxweynaha xilkiisa waa mid kale laga daba doortay ee ciidamada samaystay inqilaabka dadban ee ay abaabulayaan war waxa la isweydiinayo shacabkan weydiinayna ciidamada yaale ciidamada la qoranayo yaale Puntland male kunka Cabdiwali sheegay ma ahadee Puntland dawladda federaalka male waa al-shabaab baa filaya iyo meelayoga kale yaal Daesh iyo wax la mid taa kadib waxaan leeyahay Baydhabo xildhibaan nin sheeganaya habeen dhow hadlo wuxuu yiri waxa laga dawladda federaalka waxa ka horkantay maamul goboleedka Puntland saraakiil inay hadasho hadlaysay waa maqlayo laga horkeenay laga horkeenay adiga khaldan waxna waa dadkooga dalka wixii loo soo maray waxa leenahay xildhibaanka xamar joogow ma ogid Baydhabo tii laga soo maray baadan garan Baydhabo tii laga soo maray baad moogta waxaad ay diyaasfaro Baydhabo waxay mudatay xilligii kala guurka isqaashada ay mowduuc waxay ay soo martay hooyada baadan garan waan ku leenahay adigu ciidamada qalabka sida halka ku sugan waxaan leenahay war waxa lagu gorgortamaya waa idig waa dhiigiina waa naftiina meel kasta joogan ciidamada qalabka sida inay ka qabtaan daalimiinta burcada hadda suuqay dalka iyo dadka oo raba inay ugu celiyaan 30 sano waxay soo martay man yeelayno annagu haddana saraakiisha Puntland ma aqbali doono mana yeelayno waa macal salaama waa idin salaamaya dadweynaha